السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا إن شاء الله بيرلو أدمني كجوتان حرب عينا وحيا كرهو شغلة أنت كصوب بدتي سنة كان 2024 دل كان كندا سنة ودوكسون هاي سنة كان وحا كجرا دل كان كندا أم بعد أركتين شغلة أن بحسن أو كل علي لما يردي الصوماليات كشقيشين جرتي دل كان كندا هدي أهالي هاي كولدا كلا دوان runtii waxaa loo sababeynaa waxyaabo fara badan ay ugu horeyso in dad fara badan ay soo galeen dalkan Canada sida darteedna ay yaraatay shaqooyinkii waagii hore la heli jiray laakiin hadda waxaa dhashay challenge badan shaqooyinka oo hadda inta badan la isweydiinayo experience waagii hore wax experience badan ma la isweydiin jirin company-ga hadda u baahan yahay qof inuu hire gareeyo shaqadana qaban karo waa la hire gareyn jiray laakiin hadda wax kasta waxay noqdeen itus oo itaabsi experience ma leedahay proof of hours ma haysta iyo waxyaabo fara badan sidaa darteed haddana sidaas ay tahay shaqooyinku way jiraan waxay xiran tahay dadaalkaaga iyo sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kula garab galo adigan u dadaasho sida darteed dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku cusub dalka Canada waxa la yahay isdiibin fursad way jirtaa wixii soo daaha ayaa qeyb ku jira marka aan wada dadaalno insha Allah wixii meeshan oo nimid oo ah shaqo waa la helayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.